labadii nin hala kala gaadho waa firdhiye iyo abwaankii hala kala gaadho islaam haddaad tihiin hala kala gaadho wixii kaaga dhow kala gaadha khilaaf xun baa ka dhashay arrintu meel xun bay maraysaa baraka male bay dhalaysaa arrintaas waxay ka bilaabatay khilaafkaas wuxuu ka bilaabmay ninkii firdhiya wuxuu yidhi war dee anigu caleemasaar baan sugayaa ilaa adigu waxba sugi maysid cabdirashiid waxaad samaysaa sanaagna doon dadkii reer sanaagna doon ama reer maakhir doon ama warsigeli doon gobolkii sanaagna doon oo wax dhaqdhaqaaji oo gobolkii aad laascaanood ha fadhiine madaxweyne ku xigeen ila mas'uuliyadda ku saarane waxbaynu isku darsannaye taada 50-50 baad qaadateene cabdirashiidow gobolkii sanaagna fara laguma hayo gacan laguma hayo hal tuulo lagama hayo hal tuulo niyow doon halkaasuu ka soo booday ninkii cabdirashiid wuxuu yidhi niyow dhulbaanta dowladnimadayda ku cusub dowlad fahmi maysaan dowlad ma fahmaysaan buu yidhi joojiya degdega calamasar kala dargacleedin walba haddaad calamasar sugaysa anna waa sugayaa buu yidhi laba nin la doorta baynu nahay 50-50 baa la yidhaahdaa nin walba 50-50 buu ku yidhi degdega joojiya sanaag iyo arrimaha hadda lagu degdegi maayo shaqooyin kala ka horeeya waa inaan xagga xooga xamar saarnaa siyaasada xamar saarnaa doorashooyinka xamar 2020 haween saarnaa joojiya buu yiri orodka joojiya fudeedka joojiya waa fudeed bantiine waxaan ana aqaanaa intaasan ka Puntland ma ka soo shaqeeyay gobolka sanaag qaab aan ku dhaqmi jiray ana aqaanaa qaabka gobolka loo dhaqmo orod looma baahna